markale iyo cashirkeena 22 lesson 22 jobs and professions shaqooyinka iyo xirfadaha ayaan isbareynaa maanta. cashirkeeni hore 21 ayaan idin dhahay. cashirka ku xiga waa shaqooyinka ama xirfadaha. waa inoo kan haddaa youtube-ka ku cusub tahay waa English Somali Translation Hub. shaqada koowaad waa kalkaaliye ama kalkaaliso caafimaad. naas ayaa English lagu dhahaa. marka dhawaaqa Englishkeena waa kan Britishka. dhaqtar doctor waa dhakhtar waa midka dadka daweeyo. kalkaalisana waa midka dhakhtarka caawinayo. macalin teacher macalin ama macalimad ayay noqon kartaa. macalin ama macalimad. engineer waa engineer ama engineer maxaa waaye qofka guryaha naqshadeeyo oo guriga sida loo dhisaa iyo waxaas dhan ka warhayo. darawal driver waa darawalka gawaarida bas ama taxi. pilot waa duuliye ama duuliso hadday dumar tahay. pilot dhakhtarka ilkaha ama dentist waa dhakhtarka ilkaha. dukaanle waa shopkeeper ayaa la dhahaa ama dukaanle qofka dukaanka gado ama jooga ayaa la dhahaa shopkeeper. beeraley waa farmer waa beeraley. footballer ciyaaryahanka kubadda cagta ayaa la dhahaa. cook qofka cuntooyinka kariyo. cook ama chef la dhahaa. cook qofka cuntooyinka kariyo. cooker maxaa waaye bahasha cuntada lagu kariyo burjikada oo electric dadka isku qaldaan. baker waa qofka burarka dubo rootiga doolshada ayu nooc oo bur wixii ka saabsan qofka kariya ayaa la dhahaa baker qofka burarka dubo. firefighter dabdamiye ayaa la dhahaa. firefighter dabdamiye. mechanic waa mechanic. waiter waa kabalyeeri ama qofka cuntooyinka marka maqaayadaha aad tagtid dadka u keeno ayaa la dhahaa waiter. markuu yahay rag waiter ayaa dhihi. kabalyeeriyad ama waitress. waiter waa nin. waitress waa naag markay dumar tahay waitress ayaa dhihi. watchman waardiye. watchman ama security guard waa isku mid waa waardiye badanaa dadka habeenada guryaha ilaaliyaan ama maalintii. painter rinjiile painter isku day waxyaabaha qaar inta iga soo daba celisid waa post gareyn kartaa ama istaajin kartaa. electrician waa koronto yaqaan ama qofka xirfada korontooyinka leh ayaa la dhahaa electrician. plumber waa tubiste ama qofka biyaha tubadaha xiriiriyo ama tubadaha hagaajiyo ayaa la dhahaa plumber qofka tubooyinka hagaajiyo. judge waa garsoore ama qaaliye maxkamadeed ayaa la dhahaa qofka garsooraha ee maxkamada fadhiyo oo xukunka soo dejiyo ayaa la dhahaa judge. lawyer
lawyer garyaqaan ama qareen waa qofku u doodo qofka maxkamadda lasoo saaray. Lawyer garyaqaan ama qareen. Architect maxaa waaye qofka naqshadeeyo guryaha ama naqshadeeye ayaa la dhahaa. Guryaha dhismooyinkooda qofka naqshadeeyo ayaa la dhahaa architect. Tailor sharqaanle. Tailor musician waa heesaay ama musikiste. Musician maxaa waaye qofka badanaa oo isticmaalo qalabka muusikada, giita iyo waxaas. Barber timo jare ayaa la dhahaa barber. Carpenter adiga ayaa laga rabaa intaad af Soomaali kusoo sheegtid. Af Soomaaligeed haddii wax ku qaldan yahana sidaas ugu qaata. Kulley waxaan filayaa inta ay fahmaysiin. Marka carpenter adinka ayaa idinka tagay. Hadda kanaalkan ku cusub tahay magaciisa YouTube-ka waa English Somali Translation Hub, hoos ayuu ku qoran yahay. TikTok-na Saida Isaaq ayaa ku qoran. cashirkeena halkaas ayuu inoogu egyahay. Next waxaa rabtiin cashir aad jeclaan lahayd comment ku soo qor. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.